hadday labadaadii waalid ku nool yihiin ama midkood ku nool yahay ar ka ducayso waxaa la yidhi hooyadu weliba siiba hooyadu markay qofka ka dhimato ayaa samada laga dhawaaqo oo la yidhaahdaa war hooy kanow taan kuugu naxariisanaynay kuugu naxariisanaynay kaa dhimatee camal aan kuugu naxariisana maanta wixii ka dambeeya adigu la kaali baa laga yidhahdaa qofka intay hooyadaa kuu nooshahay albaab naxariis baa kuu furanahay iska xidhina ka faa'iidayso tii aan kuugu naxariisanaynay kaa dhimatay camal aan kuugu naxariisana adigu haddeeto lala kaali baa lagu yidhahdaa qofka waa marka hooyadii ka dhimato waa min calaamaati saaca weeyaan inuu ninku naagtiisana adeeco madaxa u ruxo oo waxay tidhahdaba haye hooyadiina laanteer qaylo badana adnaa sadiiqahu buu nebigu yidhi saaxiibkiina uu soo dhowaysan aqsaa abaahu aabbihiisii dhalayna hangool buu iskaga qaban oo iska dheerayn buu rasuulku yidhi saaxiibkii uu soo dhowaysan kaale ila qadee kaale caawa hoteelkaana casho kuugu hayee hadduu aabbihii wax weydiistana anigoon buu mashruuc iga dhigtayba anigoon buu wax keen yidhaahdaa waa min calaamaati saaxa inaad yaala suuqana aad wax walba aad siiso oo saaxiibnimo aad ku siiso aabbahaagii ku dhalay ee kugu tabcey kuu duceeyey ku koriyey wax ku baray ee waxaa tacliinta maanta aad wax ku tahay dhaqaalaha ku bixiyey inaad hadalkiisii amarkiisa aad dhibsatid waa min calaamaati saaca waana wax waddankeena jira maanta geyigii soomaalida jira ukrima arajulu makhaafata sharihi buu nebigu yihi nin baa loo maamuusi oo la casuumadayn oo la soo dhowayn maaha diin iyo khayr lagu og yahay maaha waxa loo maamuusayo si sharkiisa looga nabad galo ayaa wax la iska siin buu rasuulku yidhi waa dadka fidnada huriya maanta fataaniinta ee weliba social mediaga intay soo fadhiistaan reeraha madaxa isku gelinaya ee noloshaba ka dhacsan waa min calaamaati saaca in kuwaa la maamuuso oo la karaameeyo oo dad qiimale laga soo qaado iyagoo ilaahay garanayn oo aakhiro garanayn oo mujtamaca welibana wixii duminaya ka shaqaynaya in la maamuuso la yidhahdo casuumad baan u samaynaynaa oo waa la qaabilaya in la yidhaahdo waa min calaamaati saaca nebigaa sii sheegay